marka waxaan leenahay dhammaantood isku duubkooda sida gaarka ah wiilasha iyo gabdhaha kafaalo qaaday ilmaha laydin sheegay waxaan leenahay ilaahay ajirkiina idin laabo nabiga sallallahu alayhi wasallam waqti wax la baxo wuxuu dhihi jiray barakallahu laka fima anfaqta wa fima abqayt marka ilaahay idin barakay waxa la baxdeen iyo waxa reebateenba dadaalka meeshaas ka sii wada ardada iyo ilmaha la rabo in la kafaalo qaado way badan yihiin hadda qoysaska wax loo kafaalo qaado xataa hal cunug loo kafaalo qaado ilmahaas in walaalood aha jooga kuwa kale badan oo aan wali la kafaalo qaadin way jiraan kafaaladana inta yarood bixinaysan ilaaha barakeynayo awayaan carabta sida isku taakuleynayso oo loo sugaayo oo Soomaalida ay leeyihiin carabta waxna siiyaan ilmaha agoonta carabta waxay siiyaan waa waxa inta wiilashaan bixinayaan oo kale waxba kama badna qaarkood ka yaray bixiyaan wixii markay ururaan marka sanad oo kale ay gaaraan hal mar la siinaayo hooyadii waxay u malaysaa marka lacag aad u fara badan marka khayr Allah siiyo wiilashaan runtii aad u mahadsan yihiin hawshaan ay sameeyeen waa hawluntii aad u baraka badan aad u khayr badan qof walbo iimaan leh ama khayr jecelna uu taageerayo kuna farxayo waxaan rabaa inaan la hadlo wax yar dhaho walaalahay xoogaa cugdad isgeliyay oo arrimahan la wada ka sheega amaba si u dhaliilsan waxaan leeyahay walaalayaalow khayrun baa la wadaa khayrun baa la rabaa in la qabto marka cugdada inay iska saaraan oo walaalood wax la qabsadaan aad u fiicnaan lahayd hadday wax la qabanaynin inay iska daayaan caayda iyo aflagaadada iyo waxyaabaha aan loo baahnayn ay meelaha ku qorqoraan ama ay meelaha ku sheegaan runtii waa dhibaato dad walaalo ah inay isxasdaan ama ay isnacaan ay dhihi jireen odayaashii hore ilma adeer iskhilaaftay inkaar uma baahna iskhilaafkoodaas inkaar ugu filan hadday iswaafaqaanna duca uma baahno oo duca kale ma rabaan iswaafaqoodaas duca u ah marka anaga mar walba waxaan ku baaqaynaa in aan reer jaziiro nooma kala baxsana kulligood waa walaalaheen qofkii kun qaba kulli wuxuu ka arki doonaa meelaha la gelin doona ilmaha ha fiiriyo haddii reer jaziiro aan kala bixinay oo kuwa gaar aan wax siinayno kuwana aan u diidayno haddii aan kuwa qaar soo dhaweynayno kuwana aan riixayno meesha laga arki karaa marka waxay naga tahay walaalaha la taakuleeyo ilmahaas agoonta waxna loogu soo dhiibinay ma damcayno ilaaha naga koriyo alxamdulillah uma baahnin iska dhaaf kuwa reer jaziiro ee kuwa kale Soomaaliyeed ayaa na aamino waxna loogu dhiibaa waxaan ku dadaalnaa inay sida u gaarsiino wixii yaroo naga dhacan hadii ilaaha uu la xisaabtama ilaahay inuu naga cafiyan ka baryeynaa laakiin intaan dadaal karna dadaalna ayaan isku dayeynaa runtii dhibaato ma ahna faa'iido kuma qabno mar walba dhalinyarada waxaan isku dirnaa sanad kasta waxaan naga dhaafa anaga tawar uma hayno ilmaheena u shaqaysan lahayn boqol hoolaan isku haynaa sidaad shaqsiin sheegay ayaa run ah iyadoo caruur la leeyahay xaasas la leeyahay shaqooyin caadi la haysto arday leeyahay ayaa haddana waxa lagu leeyahay hawshan wax ka qabo wixii haddana waxaan leenahay bal waayahay walaal wax loo qabanaayo ajra ka helay khayr bal hala qabto marka haddana in la isugu sii daro in la isaflagaadeeyo ama wax la iska sheego runtii cuquba ka dhalanayso cuqubadaas xataa uma rabno walaalayn inay gaarto laakiin hadday badato oo sii wadaan عقوبة كده لا توال أركض دونا والله ما قرينا قف ولا كادو قلبي وقفت مرة والبويلاد كان رب بدنا حات الضبط يجمعون كهرباء حات كوضة ولا الكيس عنو جيسة أيا وح لاصو بيبنين ولا الجيب كيس بيبقى كسر بحي ولا لو عنو جامحة جالسي أنت صدق اسكو قوري لا أنا كل يودان أبو فكري وحاسب ضدك قلقلنا وحلي وحديدين كلية وهالمركي وحكبت سنة كلا بعض واحد حان رجينا يعني سنة سعود أنا أنيق سي ولا مرة البشر دماء مرة البني وحدا أنيق ما هي كان قف كلا لوديب لأن يردي ضدك يدا أنت بنوشاني وهذا أنيق وين أنيق آمين كرنا هوش قبض ساسا كو قبطا ما هنا دم أن كلا يهيد مرها هذا قبطنا وحنجعلها هنا المهي يمحي وحلا مسودي بأن جالسينه مركي أنت اللي سكوا أفلقات دي أما دبعت اللي سووا بيستو هذا مجعي لقوري وحال قراء ururkii magaciisa la qoraa been kala la qoraa ani suldaanka rag badan sheekh maxamed abdullahi kamid ah marar qaarkood magacadeena la soo qoraa jaziire gadanayaan waxaasay sameeyaan intay ka baxeen intay ka dhaceen waa iska dul qaadanaa inta dul qaadan karna laakiin bini aadan aan nahay waxa laga yaabaa dulqaadka inuu naga dhamaado in wax naga yimaadaan hadee waxaan codsanaynaa odayaasha cidda ee jooga dadka hebel waa dhihi karnaa laakiin ma dhahayn wali waa ka afgaabsanaynaa odayaasha cidda ah ee dadkaas isii xigaan inay naga qabtaan waa la hadalnay boqol jeer haddana waa ugu celinaynaa kulli waxaan rajaynaa filimka inuu gaari doono dadka London ku nool ee dhibka wada
hebel iyo hebel iyo hebel la dhihi karo isyaqaan iyagaa is oge ilaahay ha ka baqeen waxaan ka wadana ma lahan dhibaato iyaga aan si gaar ugu hayna ma lahan waxaan ka shaqaynayno waa wanaag ilmo agoon waxa la siiyo dad baahan oo walaale waxa la siiyo intii haddii hadda dhib naloogu keenaayo runtii waa ma aqaan sidii la yeelaayo waxay iska jeclaan lahayn u malaynaa inaan iska fadhiisano guryaheena gacmaha iska laabano laakiin ha ku bishaaraystaan inaan marnaba ka fadhiisanayn maalin dhaweyda waxaan dhahay nabadoonnimadu waa iska dhigay dadaa waxay u qaateen ilmihii agoontii iyo jamciyaddii laga shaqaynayay waa dhaafay taas ma ah marna ma dhaafi doono inaan dhinto ma ahane inaan wanaag ka shaqeeyo oo ilmo agoon wax loo qabanaayo iyo garoob iyo maxaa la yidhahdaa qof maskiina wax la siinaya kaale wax ka qabo inaan diidayo marna ma dhacayso ilaha ilaan hore ii amray marka walaalayaal baaraka allahu fiikum warkayga hadduu kulul yahay ha la iska sabro waxaa waya dhibaatadii naga badatay runtii meelo badana lagu qoray meelo badana waxna looga sheegay dulqaadkii waa dhammaanaa marka dambe dulqaadki waa dhammaanaya waxaan rabaa inaan sheego cudurdaar uu iisoo gudbiyey walaalkay ugaaska axmede sheekh abikar gurigiisaan ugu tagnay waxaan ka codsanay inuu xafladda ka soo qayb galo runtii markaan u tagay waa xanuunsanaa sariir u saarnaa marka